الحمد لله gabadha uurka leh dalqadu way ku dhacdaa wayna furantaa dan wax kale oo diida jirin uurku ma diiday bal wuxuu kamid yahay cidooyinka marba gabadha hadii la furayo in lagu furay fiican tahay fatalliquhunna li'iddatihinna haweenka la furay ciddadoodan ilaahay wuxuu ka dhigay wa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yad'ana hamlahun xilliga nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaa dhacday dhacdooyinkii kamid ahaa Zubayr ibn Awaam ee xaaskiisa isqabqaban jireen uur waxay ahayd fool ah oo kama dambaystay maraya salaad subax ka hor ba waxay dareemaysay xanuunkii foosha inuu furana way rabtay waxay tiri Zubayrow hal dalqad dhagahayga niyaha ugu raaxe wuxuu saartaa waayahay wuu hal dalqad aan ku furay salaadu iska aaday isaga mooga xanuunka foosha haysa intii uu maqnaabay umushay xogay markeedii soo yar bariistay soo noqday iyadoo umushay buu u yimid waxay tiri mac salaama niyo waanday furtay ciddadiina way dhamaatay nabigu u yimid kaleey salaatu wasalaam wuxuu arintan farahaga way ka baxday Zubayro arintan faraha kugu jirta maaha sadarteed gabadh uur leh baa la furay wax yar kadibna isla salaadii subax intii lagu maqnaana way dhashay ciddadeedina way dhamaatay marka gabadha uur kale way furmaysaa waxa soo haray labada dalqadood lagu furay ma israacayaan mise hal dalqad bay noqon waa laba qowl ahlul ilmi wa ilayhi rahmatullahi alayhim asaxuhuma daliil ahaan marka la yiraahdo hal dalqad baa dhici waay marka meeshaasi gabadhu way furantay hal dalqadna way dhacday laakiin waxa soo haraya dalqada ma ka horeeyeen oo rajactu meedin furantahay mise ma ka horeeyeen hal laba ma ka horeysay kale hadii laba kale ka horeysay saddex way dhamaatay hadii waxba ka horeeyna ama hal uun ka horeeyayna rajactu waa idin furan inta ciidadu jirto wabillahi